qiso xanuun badan baa ku dhacday labada caruurta ee yaryar waa walaalo gabadha waxaa la yidhahdaa nawaal wiilkan cali sacuudiyaan bay ahaayeen. caruurtan yararkaa gurigooda waxaa ka shaqayn jirtay gabadhan oo etoobiyaan muslim inay tahay aan u malaynayo waxa dee qof xijaaban bay u egtay khamar bay xidhan tahay kolley inay muslim tahay baan u malaynaya. etoobiyaan bay ahayd ayadood haddaba oo khawla la yidhaahda bay u shaqayn jirtay gabadhani ayadood bay u shaqayn jirtay kadibna iyagay kusoo wareegtay oo xaafadan nawaal iyo cali iyo bay ka shaqayn jirtay. hooyada dhashay nawaal iyo cali iyo way shaqo tagi jirtay hooyo waxay shaqayso gurigeeda banaanka uga baxda wiilkeedii baa wacay haddaba cali ha maalin maalmaha ka mid a isagoo aada u qaylinaya wuxuu waan dhiig baxayaa musqushaana ku xidhanahay na soo gaadh nawaalna waxaan u malinayaa gabadhii shaqaalahayd inay dishay. hooyadii guriga markay timid laamihii amniga ee wacday ee la yimid hooyadii waxay timiday iyadoo gabadheedii yarayd ee ahayd nawaal ay zaa-id u dhiig baxday oo dhulka taalo oo dhiiggeeda saas ay ugu dabaalanayso inay markaa dhimatay iyo inay koomo ku jirta ayna kala garanayn. wiilkiina uu musqul ku xidhan yahay oo isaguna sidoo kale uu u sheegay hooyada markuu soo wacayay inuu dhiig baxayo isaga laftirkiisa dhibaato loo geystay. hooyadii isla markiiba marka laamihii amnigay wacday laamihii amniga markay yimaadeen hooyadii xaaladeedii laftirkeeda waxay noqotay halis. gabadhii waa la qaaday iyo wiilkiiba isbitaal baa la geeyey wiilkiina si xun buu u dhiig baxay oo dee saacado badan buu dhiig baxay intuu musqusha ku jiray hooyadu intay imanaysay intii booliista la wacayay wixii oo dhan wiilkiina uu dhiig baxay koomuu galay gabadh yarteedna koomay ku jirtay gabadha iyo wiilka gabadhay marka xaaladeedu halis ahayd. hooyadii waxaa loo sheegay markaa saacada kadib inuu wiilkiina fiican yahay koomadii kasoo baxay gabadhiina ay dhimatay. gabadhii baa lasoo qabtay marka gabadhii xilliga laamaha amnigu guriga ay imaanayaan gabadhii etoobiyaankeeda guriga ka shaqaynaysay gurigay iska joogtayba may cararin ismay waalin inay baxsato iskumay dayn qol yar bay lahayd oy degan tahay oy seexato. gabadh waxay ahayd ay reerkan etoobiya ka keensadeen oo la degan reerkoo la joogto una shaqaysa lana degan oo la seexata qolkeediiba iris kaga jirtay wayba iska fadhidayba saanayba iskuga fadhidayba waa loo yimid waa lasoo qabtay saldhigii booliska la geeyey. waxaa la yidhi marka sabab maxaad u dishay caruurtan maba hadalaysaba hal kelimad inay sheegto way diiday. hooyadii waxaa loo sheegay marka wiilkiina inuu koomadii kasoo baxay uu fiican yahay gabadhiina ay dhimatay ilaahay ha u naxariisto sabniyo iman hooyadeedna dee allaha ka sii iyo aabaheed. kadib gabadhiiba waxaa la yidhi marka waa in la baadho bal su-aalo fara badan la weydiiyaa sabab maxaad caruurta u leysay maxaad saan u yeeshay kadibna dee maxkamad markaa loo sii gudbiya hadday hadashay haddii ay hadal weydaba. hooyadii marka uma nawaal ahayd ee nawaal iyo cali dhashay waxay tiri waxaa ka dhammaaday islaantan caruurta leynaysa caqdigii shaqada ee ay wadankan ku joogtay marka waxaan ku iri heshiiskeenii wuu sii dhammaanayaa waa inaad iska baxdid oo wadankaagii aad aadaa. waxay tiri marka waxaan doonayaa heshiiska mar kale inaan cusboonaysto iyo cusboonaysiisid adigu waxaan doonayaa inaan sii joogo wadanka sii shaqaysto inaan tago wadankaygii aado ma rabo. hooyadii uma nawaal ahaydna waxay tiri maya anigu gabadh kaloo shaqaalaa ma rabo heshiis inaan kuu cusboonaysiiyana ma rabee raali noqo iska tag oo wadankaagii iska aad. lacag baan siiyey bay tiri marka waxa iyadu ugu dartay iyo waxeedii ay ku lahayd marka waxaan islahaa bay tiri ha iska aad adeegato suuqa maalmahan ha aado bil baa sii dhamaanaysa bisha markay dhamaantana dee ha baxdo. hooyadii oo maqan unbaba islaantii xanaaqday mindi intay soo qaadatay bay wiilkii yaraana dhaawacday oo dee isagoo saa-id u dhiig baxay dhowr mindiyood galgelisaba intuu carabay wuxuu isku soo xidhay xamaam kadibna taleefon buu haystay si degdeg wuxuu u wacay hooyadii gabadhii yar tahayna intay qabatay bay intaasoo jeer ay waxay gelisay mindidii oo sidaas ayay ku dhimatay. gabadhii markii booliiska waxba kasoo saari waayeen maxkamad baa loo gudbiyey maba hadlaysaba. waxaa la yidhi marka sabab maxaad caruurtan u dishay keliya waxay tiri anu inaan taga ma rabin wadankaygii inaan aado ma rabin waxaa rabay inaan sacuudiga sii joogo dee sacuudiga sii joogba haddaad doonta caruurtan maxaad ku laysay marka saqiirka wiilkana halis buu galay gabadhiina waaba dishay soo maaha wax sababa oo naagtaasi caruurtaa ku dishay way sheegi weyde. waxaa lagu xukumay marka icdaam dil baa lagu xukumay maadaama qofna dhaawacday qofna ay dishay gabadh yaradi ay dhimatay iyada mindiyihii ay ku dhufatay sababteed ay u dhimatay waxaa lagu xukumay iyadiina dil. waxaa la yaab noqotay marka oo cajiiba sababta ay gabadhaasi caruurta yararka ah ku leysay yacni qofba waxbuu u maleeyay qof wuxuu leey waxaa laga yaabaa hooyadu inay dhibi jirtay oo rabtay hooyada inay ka aargoosato qof wuxuu leey waxaa laga yaabaa intay tiri hooyadan heshiiska iyo cusboonaysii markay diiday tiri kuma cusboonaysiinay gabadh shaqaalana uma baahnayn waad iga fasaxantay wadankaagii iska aad inay xanaaqday saas darteed. laakiin waxaa kaloo ani iga yaabiyey mabay cararinba inay cararto iyo inay baxsato midna iskumayday ma garanayo malaha in la dilayba rabtayba oo dil lagu xukumo waan fahmi waayo kolley iyadoo aamusan oon weli afkeeda furin baa la xukumay oo dil lagu xukumay markii ay hadal weyday ilaahay dadka sharka badan shartooda caruurta yarka ah ka badbaadi. qiso xanuun badan baa ku dhacday labada caruurta ee yaryar waa walaalo gabadha waxaa la yidhahdaa nawaal wiilkan cali sacuudiyaan bay ahaayeen.
caruurtan yararkaa gurigooda waxaa ka shaqayn jirtay gabadhan oo Ethiopian Muslim ay tahay aan u malaynayo waxa dee qof xijaab bay waqti khaar bay xiran tahay kulli inay Muslim tahay baan u malaynaya Ethiopian bay ahayd ayadood hadaba oo hawla la yiraahdo bay u shaqayn jirtay gabadhani ayadood bay u shaqayn jirtay kadibna iyagay ku soo wareegtay oo xaafadan Nawaal iyo Cali iyo bay ka shaqayn jirtay hooyada dhashay Nawaal iyo Cali iyo way shaqo tagi jirtay hooyo waxay shaqayso gurigeeda banaanka uga baxda wiilkeedii baa wacay hadaba Cali ha maalmaha kamida isagoo aad u qaylinay wuxuu waan dhiig baxayaa musqushaan ku xidhanahay na soo gaad Nawaalna waxaan u maleynayaa gabadhii shaqaalahayd inay dishay hooyadii guriga markay timid laamihii amniga ee wacday ee la yimid hooyadii waxay timiday iyadoo gabadheedii yareyd ee ahayd Nawaal ay saaid u dhiig baxday oo dhulka taalo oo dhiigeeda saas ay ugu dabaalanayso inay markaa dhimatay iyo inay kooma ku jirta ayna kala garanayn wiilkiina uu musqul ku xidhan yahay oo isaguna sidoo kale uu u sheegay hooyada markuu soo wacay inuu dhiig baxayo isaga laftirkiisa dhibaato loo geystay hooyadii isla markiiba marka laamihii amniga wacday laamihii amniga markay yimaadeen hooyadii xaaladeedii laftirkeeda waxay noqotay halis gabadhii waa la qaaday iyo wiilkiiba isbitaal baa la geeyay wiilkiina si xun buu u dhiig baxay oo saacado badan buu dhiig baxay intuu musqusha ku jiray hooyadu intay imanaysay intii booliska la wacay wixii oo dhan wiilkiina uu dhiig baxay kooma u galay gabadh yarteedna kooma ku jirtay gabadha iyo wiilka gabadhay marka xaaladeedu halis ahayd hooyadii waxaa loo sheegay markaa saacad kadib inuu wiilkiina fiican yahay koomadii ka soo baxay gabadhiina ay dhimatay gabadhii baa la soo qabtay marka gabadhii xilliga laamaha amniga guriga ay imaanayaan gabadhii Ethiopianka guriga ka shaqeynaysay guriga iska joogtayba may cararin ismay waalin inay baxsato isku meedeyn qol yar bay lahayd oo degan tahay oo seexato gabadh waxay ahayd ay reerkan Ethiopia ka keensadeen oo la degan reerka oo la joogto una shaqeysan lana degan oo la seexata qolkeedii bay Iris kaga jirtay boo iska fadhiday saanay iska uga fadhidayba waa loo yimid waa la soo qabtay saldhigii booliska la geeyay waxa la marka sabab maxaad u dishay caruurtan ma bahadalaysaba hal kelimad inay sheegto way diiday hooyadii waxa loo sheegay marka wiilkiina inuu koomadii ka soo baxay oo fiican yahay gabadhiina ay dhimatay Ilaahay ha u naxariisto sabnay iman hooyadeedna dee Allah ka sii iyo aabaheed kadib gabadhiiba waxa la yiri marka waa in la baaro bal su'aalo far badan la weydiiyaa sabab maxaad caruurta u leysay maxaad saan u yeeshay kadibna dee maxkamad marka loo sii gudbiyay hadii ay hadal weydaba hooyadii marka Nawaal ahayd ee Nawaal iyo Cali dhashay waxay tiri waxa ka dhamaaday islaantan caruurta leynaysa caqdigii shaqada ee ay wadankan ku joogtay marka waxaan ku yiri heshiiskeeni uu sii dhamaanaya waa inaad iska baxdid oo wadankaagii aad aadaa waxay tiri marka waxaan doonayaa heshiiska mar kale inaan cusboonaysid adigu waxaan doonayaa inaan sii joogo wadanka sii shaqaysto inaan tago wadankaygii aado ma rabo hooyadii Nawaal ahaydna waxay tiri maya anigu gabadh kale oo shaqaala ma rabo heshiis inaan ku cusboonaysiiyana ma rabe raali noqo iska tag oo wadankaagii iska aad lacag baan siiyay bay tiri marka waxa iyadu ugu dartay iyo waxeedii ay ku lahayd marka waxaan islaabay